tahay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii Hirda Tournament ee ahaa sanadkani 2014 ciyaar waxaa socota imika xamaasad leh oo ay ciyaarayaan xulka Soomaaliya dhalinyaro matalaysa iyo sidoo kale dhalinyaro ayagu Moroccan oo ayaguna ciyaaraya xulka Morocco ciyaartu waxay maraysaa eber iyo eber waxayna ciyaartu ay tahay mid xamaasad badan iyadoo boqolaal dadweyne ay ka soo qayb galeen sidoo kale xamaasadooda ayaa ah mid halkan aan lagu soo koobi kareyn ayadoo ay taageerayaashu ay yihiin kuwa marka weerarka kooxda Soomaaliya markii ay qaado oo xamaasadoodu uu yahay xamaasad aad u fara badan sidoo kale waxa ka soo qayb galay مسؤولين فربضان وشاشة إميكا إنوغا موقتا قلاشي ذو حافظية مسؤول كغرمضة مدوي وقابل سن سوماليا وحن ويدين يا درين كيسا كو آدن على فقه مركو روح نقوصو دوين على الميكروفون كا وحاسوعتو يارد أحمد أسا سوماليا إيو مروكو واسي درين كاي درين كي آدبو في عيا وانو كفر أحسنا إنان هالكا انجوغو كوح سوماليا وحن وجينا إنين كوح خطرة marka waxaan rajaynaynaa nimankan Moroccanka inaan ka reeyno maanta waayahay waxa imika ay tahay ciyaartu wili eber iyo eber kooxda ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya waa dhalinyaro ayagu la soo xulay isla markaana u badan dhalinyarada dalka Holland oo ay yihiin dhalinyaro in badan aan isla wada ciyaarin balse soo bandhigay ciyaar wanaag waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro fara badan oo ka kala socda qaaradda Yurub gobolka dalka Holland oo kale Finland Norway wadamo badan marka maxay faa'iido ay u leedahay dhalinyarada ka soo qayb galay barnaamijkan maxaase ku leedahay Hirda oo 10 sano jirsatay sanadkani horta dhalinyarada isbarasho maaragtay inay isbartaan koox Soomaaliyeed oo maaragtay oo ciyaaro marka runtii faa'iidadaas ayaa ku jirta inay isbartaan oo iyaga isla ciyaaraan maaragtay hadhowtana ay u istaagaan qaranka Soomaaliyeed tan ku saabsan Hirda oo maanta maaragtay sanadkii 10aad meeshan anniversary-geeda la joogo waxaan u maleynayaa inay waxqabad weyn ay qabteen oo ciyaarahan ay dhiirigeliyeen sanad kastana ay dhiirigelinayeen maaragtay isu keenida dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogtana waa arrin aad u muhiim ah waa maadsantahay cali fiqi ayuu ka sidoo kale waxa ciyaartaasna daawanaya oo kamid ah mudane cali waare oo ah gudoomiyaha dalada Efsan waa u jeedaa gudoomiye waxa socoto ciyaar xiiso badan oo ay ciyaarayaan Soomaali iyo Morocco loo ciyaarayo dadka taageerahana oo u jeeda xamaasad fara badan ay muujinayaan adigu dareenkaagu waa sidee aad iyo aad u mahadsan tahay runtii aniga dareenkaygu aad iyo aad ayuu u sareeyaa sababtoo ah waxa halkan iiga muuqata laba kooxood koox ku ciyaaraysa magaca Morocco wadanka Morocco iyo kooxda ku ciyaaraysa magaca wadanka Soomaaliya marka runtii dad fara badan oo Soomaaliya ayaa halkan fadhiya sida halkan ka muuqata oo aad u taageersan ciyaartan inay kooxda Soomaalidu guuleysato waana rajaynaynaa runtii inay guuleystaan marka waa wax lagu farxo runtii in halkan lagu arko calankii Soomaaliya iyo dad ku ciyaaraya magaca Soomaalida waa maadsantahay gudoomiyaha dalada Efsan cali waare sidoo kale waxa garabka ku haya gudoomiyaha dalada Hirda sidoo kale oo ka soo qayb galay gudoomiye waxaan ka wareysanayaa ciyaarta imika socota oo ah ciyaarta ugu xiisaha badan ugu taageeraha badan isla markaana ay matalayaan Soomaaliya iyo Morocco dareenkaagu waa sidee gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii waxaan aad ugu faraxsanahay ahdaaftii laga lahaa ciyaaraha Amsterdam Futsal Tournament in qayb kamid la gaaray sababtoo ah maanta waxaanu daawanaynaa ciyaar aad u xiiso badan
oo ay isugu hor yimaadeen koox dhallinyaro ah oo matalaysa Soomaaliya calanka Soomaaliyana ku ciyaaraysa iyo koox Marookaan ah oo ayagana ah qaranka dawladda Morocco marka runtii waxay ka mid tahay hadaaftii laga lahaa ciyaaraha aanu qaban jirnay 10 sano jirsaday marka taariikhda waxa weeye taariikh aan la ilaawi karin haddana kooxda magaca Soomaaliya ku ciyaaraysa aad ayay uga caddahay kooxda kale waa mahadsan tahay gudoomiyaha dalada hirda ayuu ahaa sawaxan ka dhacaya waa maqlaysan ujeedaan sawaxan ka dhacaya gool ayay dhaliyeen ciyaartu waxay maraysaa 1-1 xulka Soomaaliya ayaa bareejeeyay xulka Soomaaliya ayaa bareejeeyay waxay maraysaa ciyaartu 1-1 xamaasaduna waa xamaasad aan la soo koobi karin xamaasada aan la soo koobi karin Mama Batulo ayaa markan halkan fadhiyo waxaan rabaa Mama Batulo inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka sidoo kale ayada iyo gabdhahooda way diyaarsan yihiin oo waxay soo bandhigi doonaan ciyaar basketka Mama Batulo waxay ka mid ahayd legend hore soo ciyaaray basketka Mama Batulo dareenkaaga ku aadan ciyaarahan sanadkan dhacay waa sidee gaar ahaan ciyaarta iminka socota ee dhaxmaraysa Soomaaliya iyo Morocco oo ay u soo daawasho tageen dad aad u fara badan qaylada iyo Rasul Maqlis والله من سو كوبي كرمان فرصة قايلة كفاية سنة وما سنتاي نوري إن مروكان كي وعيارها الصومالي وحمد دابع عياري برسمات كصومالي قرن كعيارها ينعمل أي ما أنت حماسته تاي دليل الصومالي كسر قريب قشي ويل أو قبل له إن عيارتوي دي قرن كصومالي هوري دمان دي في جياش إن في محلا دمان والصحافة كل واحد له هاي السلام وين هذه السلام هيا Soomaali meel ay meesha joogto isboortiga madaxda dhamaan waxa idin leeyahay guul ayaa idin rajeynaya xamaasadeennana aad iyo aad ayay ku caasan tahay xalay baan ciyaarnay waan guuleysanay caawana ciyaar baadna soo war imaanayna laba kooxood waxaana arkaysaan ciyaarta iminka 1 iyo 2 ay maraysaa oo waxa lagu leeyahay kooxda ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya ciyaartan waxay tahay mid xamaasad badan oo ay dadkii u soo daawasho tagay ay yihiin kuwa iyagu xamaasad gooniyo ku abuurtay oo aad maqlaysaan sawaxankooda وقتها برنامج كان يقول محمد أبو أنا جديد بهينية waxaa ciyaartani ku xigi doonta ciyaar kale oo imika basketka oo gabdhahan imika aad u jeedaan iyagu soo bandhigi doona ciyaar aad u wanaagsan waxaan kaloo rabaa in mikrofoonka aan ku soo dhaweeyo Mama Faadumo Farax oo ayaduna ka mid ah guddiga hay'adda hirda oo ayaduna soo qaban qaabeen si 1 iyo 2 ay ugu tiraado waxaan rabaa inaan imika shaashada aan ku soo dhaweeyo Mama Faadumo Farax waxaan rabaa marka hore waa u jeeda aad u faraxsan tahay ma sha Allah waxa socoto ciyaar dhaxmaraysa Soomaaliya iyo Morocco waxa kale oo loo soo ciyaaray ciyaaro kale oo dhalinyarada qurbaha ka kala yimid ay soo bandhigeen oo imika semifinal iyo marayso gabagaba ku dhow guud ahaan dareenkaaga waa sidee والله ما أنت هذا أقول فرح سنة هاي هرتا سوي جديد سومالي ده لأن يرضى يسوي عيارة هذا وفي عن طيب تيم كان وادريم تيم عيارة سيف عنا ودعين مالمي لصور في حضرت أنا ويلي سيف عنا وسعودان وحواي هذا أقول فرح سنة كل وحياوير وأنا يقدم لكن سيدا بدن وحيد وح سيدا أقول تلقى له ودعين sanadkan waxaa moodaa in ay tahay sanadkii 10aad hirda dadaal dheerina ay muujiyeen adkaysi fara badanna ay muujiyeen marka sanadkan muxuu kaga duwan yahay isdhihi kartaa sanadihii kale maadaama khibrad dheeri aad haysataan muddo 10 sano ah aad soo maamuleyseen oo sanadka wuxuu uga duwan yahay horta waa sanadkii saddexaad oo ay gabdhaha ka soo qayb galaan basketka waxa kale oo kaga duwan yahay national teamka oo Morocco oo asagana maartay aan la noqonay saaxiibo oo adigana nala ciyaaraya oo macnaha international sii noqonaa waxaan rabnaa insha Allah sanadaha soo socda xataa inaan ku darno wadamo kale hadii Ilaahay yiraahdo waayo dhalinyarada challenge ay u baahan waa u jeeda hadda maanta ay u ciyaaraya marka wuxuu uga duwan yahay wadamo kale oo nala ciyaaraya iyo dadka ka imaada Europe xataa oo dhalinyarada Europe ka imaata oo sanadkan aad u badan ilaa 8 kooxood ah marka uu ka duwan yahay sanadka hore waxaan kala macnaha oo aan rabaa inaan xuso waxaan la joogaa dad badan oo marti ah oo Soomaaliyeed sida Cali Fiqi oo ah ambassadorka ambassadorka oo jooga halkaan asaga iyo ii sheeg gudoomiye hore oo gobolka Banaadir asagana oo nala jooga marka waa u jeedaa macnaha maanta aad u badan tahay ka qaybgalka public xataa ya
fanaaniinta Soomaaliyeed waayaha cusub oo ayagana halkaan la jooga laka xaaji wacays maxay Cabdi Baadil dad badan ay jira oo nolol joogaan oo fanaaniina Sheikh Khalifa oo naga macnaha naga baaqday waxa way macnaha fanaaniin badan waa joogaan dad badan oo martiyana waa joogaan gabdhaha basketka ay jooga ayagana oo halkaan hadda mar ciyaarta ku xigta ciyaaraya marka aad aan u faraxsanahay sidii aan ugu talagalnay si ka fiican ay noqotay ciyaarta dad fara badan oo basketka dhanka wiilasha jecel oo dad hore ahaa ayaa jira oo igu gaabsado dhahayo bal xoogaa dhankii wiilashii lama soo habeen sanadaha dambena dhanka wiilasha xitaa wariyaasheenna xitaa iyo hirda in kubadda hal ciyaar loo suubin doono ka waran waa sidee إن شاء الله واسكو دي دونا كل وحي صورة قلا مرتا عيارها بابل كود ما واحد فضد وواحد وعدك مركا واحد اسكي مدري كرا مركا إن شاء الله كل واحد رجلنا هنا أنت كبلار ضد بدر حتى وحي نوسو تشدين إن نقدر عيارها أتلت كذا مركا إن شاء الله ورجلنا هنا نقدر هذه لا يرى أيوة ما تتقول أنا ذي له هواية هاي داو ضيال ويلي وحد نجد داون إنسان على ده ليف ستريمكا عيارتون وحي مريسا سدح إياه هلا وكسر ريسو كواحدة كو عيارسا مجا مروكو dhanka kale kooxda ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya waxay leeyihiin iyaguna gool waxay tahay ciyaartu 3-1 oo Dream Team waxay leeyihiin hal gool Cabdi Xakiin ayaa markana dhinacayga taagan Cabdi Xakiin ciyaartu waa maxay dareenkaaga waa sidee maxamed daawud aad baad u mahadsan tahay sida aad u daadahaynaysa ciyaarta iyo sida sharafta leh oo aad markasta aad u dhinac taagan tahay dhanka isboortiga maadaama uu yahay isboortigu hooyada horumarka haddaan kaaga warramo ciyaaraha hadda ka socda garoonka labaad ee wada ciyaaraya xulka qaranka Morocco iyo koox matalaysay Soomaaliya oo laga soo dhaxeerurshay AFT Amsterdam Futsal Tournament hada sidaad u jeedo waxay maraysaa 1-3 waxaana ciyaarahan hadda aad u jeedaa waa ka xamaasad badan yihiin ciyaarihii hore waxaan fadhiya oo hadda garoonka dhex fadhiya danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub isla markaasna ah safiirka Soomaaliya u fadhiya wadamada Benelux Dr. Ali Saciid Faqi waxa sidoo kale martida kamid ah duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo asagana waxa kaloo ayagana meesha fadhiya dad magac iyo maamuus ku leh isboortiga Soomaaliya isla markaasna u soo shaqeeyay wasaaradda isboortiga ama ciyaarihii Soomaaliya waxaana kamid ah Maxamed Ismaaciil oo ah ciyaaryahankii Soomaaliya legendiga ahaan jiray wakiil sida u jeedo dadweynaha Soomaaliyeed ayaa kacay waxaana gool dhaliyay Ali Lambert doba ayaa gool ka dhaliyay Ali ayaa u dhiibay 13 wata sida u jeedo waxaana kacay hal mar dareenkii dadka ayaa isbedelay waxayna noqdeen 2 iyo 3 sida u jeedidba Maxamed Daawud maxaa isleeyahay darashada waa la soo gashay xoogaa rajadu way dhiman tahay inkastoo wili 8 daqiiqo ay ka dhiman tahay ciyaarta half time keedii dadka ka soo qayb galay horta waxaad moodaa in xamaasad gooniya maanta ay leedahay goolhayaha Soomaaliya waxa uu badbaadiyay goolhayaha Soomaaliya wuxuu badbaadiyay gool aad u qurux badan oo ay Morocco fursad ku heshay waayahay kooxdan Morocco waa koox isku xiran hore u soo ciyaaray dad national ah oo maaragtay in badan isla soo qaatay laakiin kooxda Soomaaliya waa dad laga soo xulxulay goboladan oo imika ku cusub maxaa la yiraahdaa wili aanan isla qabsanin ciyaaryahanada kooxda Morocco ku ciyaaraysay ciyaartu waxa harsan 5 daqiiqo waxa ayna maraysaa 3-2 oo saddexda ay leedahay kooxda ku ciyaaraysa xulka Soomaaliya ciyaaryahanada ku ciyaaraya magaca Soomaaliya waa ciyaaryahan isku dheelitiran inkastoo aysan ahayn dad isla ciyaar bartay oo ay yihiin dad la soo wada xulay oo kooxaha kale ee halkan ka ciyaarayay laga soo wada xulay laakiin kooxda ku ciyaaraysa magaca Morocco waa koox ka qayb gashay horyaalo fara badan dad ayagu magaca Morocco matala sidoo kalena ah koox isla qabsatay balse ciyaarta marka aad barbar fiirisid ayaa waxaad moodaa in ay tahay mid weerarkeedu uu yahay labadaba dhan in ay siman yihiin ciyaaryahanada Soomaaliya ayaa waxa ay imika ay yihiin kuwa wax abuuraya oo ah kuwa imika ay yihiin isku dayaya inay soo gudaan goosha imika lagu leeyahay ciyaartan waxaa soo dhow half cambio oo imika ay naga harsan tahay 4 daqiiqo iyo dhowr sekin ciyaaryahanada Soomaaliya wili waxay isku dayayaan in ay soo gudaan way socotaa ciyaarta uu ciyaaryahanka number 13 ayaa wata wuxuu isku dayaa inuu kubadda u baaso
ma aysan u suuragelin kubaddii dhex ayaa laga celiyey weerarkan waxa uu ku socdaa goosha Soomaaliya waxa wata Cali 13ka wuxuu siiyay number 7 wax faawul lamaanaan dhigin ciyaartu wili way socotaa waxay maraysaa 4 daqiiqo ayaa wili inooga harsan waxa wata ciyaaryahanka numberkiisa goolhayaha kooxda Soomaaliya waxa uu badbaadiyay fursad aad qaali u ahaa gool laga dhigan karay waxa hada ciyaaryahanka Soomaaliya waa ka xumahay goolkii muusan u suuragelin inuu dhaliyo wili way socotaa ciyaarta waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii Hirda Tournament sanadka 2014 ciyaarahani ayaa waxa ku xigi doona ciyaaro basket ah ay soo bandhigi doonaan gabdhaha Soomaaliyeed si markaa ay loo daawado ciyaartaas oo noqon doonta mid aan anagu si live aan u soo jeedin doono waxaan idin daadeheynayaa anigu Maxamed Daawud Umar Maxamed Yumbi ciyaartu waa 5-2 Morocco oo 5 leh iyo Soomaaliya oo 2 leh saacada ka haray qodoomiye ilfirsi 5 iyo waxay maraysaa 2 half time-kii ayaa soo dhow misdhigi kartaa goolal 3 iyo ka badan Soomaalidu iska soo gudi karaan wallahi difaaca Morocco waa adag yahay 2 gool si dhaqsiya looga dhaliyay laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalida 2 gool inay dhaliso laakiin inay yareyso way adkaan doontaa فنان وما تسنتهاي وياهي مركنا وهاف تايم كي عيار waatahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii sida tooska ah kaga imaanayay magaalada Amsterdam barnaamijkaasi oo soo qabanqaabisay hay'adda Hirda waxaa wada ciyaaraya 2 kooxood oo koox ka mid ah ay tahay xulka dalka Morocco iyo sidoo kale waxaa ciyaaraya dhalinyaro Dream Team la magac baxay oo ku ciyaaraya magaca xulka Soomaaliya ciyaartan waxaa u soo daawasho tagay dadyo aad u fara badan oo isugu jira mas'uuliyiin fanaaniin iyo sidoo kale aqoon-yahano ka kala yimid wadanka Holland diriska la ah sida imikaba aad arkaysaan ciyaartu waxa weli ay maraysaa 8 gool oo ay leeyihiin kooxda Morocco kooxda Soomaaliyana waxa ay leeyihiin ayagu 2 gool ciyaarta weli waxa waaye waxa harsan weli 15 daqiiqo Maxamed Abuna oo asiguna kamid ah kulay bahda saxaafadda uu ila jooga ciyaartana si fiican ayuu u daawanayaa Abuna markuu ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofoonka ciyaartuna waxay maraysaa 8-2 dareenkaagu waa sida adiga runtii dareenkayga aad u kacsan yahay 8-2 annaga ayaana lagu leeyahay Morocco ayaa 8 leh Soomaaliya 2 ay leedahay runtii waxa waaye waxaa meesha ka muuqata xogaa labada koox inay aad u kala awood badan yihiin
oo xagga xirfadda iyo maarkiino xataa jirka sida u diyaa isku xirka kooxda farsamada dad kuwan waxaan arkayaa waa koox dhisan oo waddanka ka dhisan oo ka qayb gala muxuu ahaa horyaal caadiya dheela waa koox diyaarsan wey dhallinyaradeenna maaha koox diyaarsan runtii ciyaar ahaan kama liitaan laakiin waxaad dareemaysaa niman maaragtay koox u ciyaara oo sanad dhan ciyaaraya oo maaragtay training ku jira 24 saac isla ciyaara iyo niman meelaha inta laga soo aruuriyey oo maaragtay ninba meel ka yimid maanta oo kale halkaan ku kulmay waad dareemi kartaa marka waxaan arkaynaa awooddaasaan arkaynaa marka nimankan waa kooxna waxa weeye iskama celin karno marka laakiin waxa weeye maxaan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxa waaye kubaddan saal futboolka ah waa kubad xirfaddeeda aad u sarrayso oo dhallinyarada soomaalida oo jecel anigu waxaan kula talinayaa si raggaanoo kale ay u noqdaan in maaragtay ay si fiican tababar u galaan oo ay kooxaha waddanka ku jira ku biiraan tababar ay qaataan sanadkao dhan kadib sanadka kale ama 2 sano 3 sano kadib hadduu ilaahadma marka halkaa isku aragno waxaad arki doontaa dad maaragtay ciyaar ahaantooda iyo awooddooda aad u sarrayso marka nimankan wax inaan ka baranno ayaa fiican maadaama naga raayeen oo naga awood badan yihiin annagu waxa weeye inaan wax ka baranno banoonigeenna marka dhibaato kalena waan arkay hadda maadaama ay marayso 8-2 anigu macallinka waxaan kula talin lahaa inuu kooxda waa 5 nin 5 nin 3 ka mida difaacay galaan hal uu iska warwareego si ay u yareeyaan khasaarahana soo gaaraya si aan goolal kale noolaga dhalan sababtoo ah awooddiyaa kala badatay marka kooxdii waxaa hadda roon in difaac lagu celiyo anigu taasay ila tahay runtii ciyaartu ilaa hadda waa wanaagsan tahay disibliinka hanala ka badiyo dhib male labada koox farsamadoodu aaday u fiican tahay waxaa keliya noogu daran waxa weeye koox diyaarsan oo maaragtay koox adaga oo tababar qaadata oo horyaalka waddanka ka ciyaarta iyo dhallinyaro soomaaliya oo la isku aruuriyey oo xaafadaha isaga dheedheela ayaa meesha ku wada ciyaaray marka waxaad dhihi kartaa qaran iyo ciyaal xaafadeed oo kale ciyaaraya taasaa xoogaha maaragtay ay noqotay marka waxaan rajaynayaa maaragtay inaan wax ka baranno abuna sidoo kale waxaa ka soo qayb galay marti fara badan mas-uuliyiin sidoo kale ciyaal fara badan oo qurbaha ku dhashay oo ku barbaaray qaarkood iyagoo yaryar la keenay sanadkan kooxo badan aan ku cusub sida Finland oo kale waxay sheegeen in wax badan ay ka barteen kubaddana cagtana waa cad iyo madow oo la reebay laakiinse meel wanaagsan ay yimaadeen weliba ay maaragtay ay la dhihi karo kooxihii waddankan ka dhisnaa sida khaasatan Amsterdam ay weli ka buuntooyin fiicnaayeen oo kaalimaha kuwaad ay ku soo baxeen welina ayna ahaayeen dadka ugu dishibliinka fiican ugu akhlaaqda wanaagsan da'dooduna ay ahayd kuwo aad u yaryar oo la dhihi karo way ka yaryaraayeen kooxaha kale marka dareen ceenkee ayay kugu dhalisay markii aad aragtay koox sidaas oo kale ah runtii waa kooxda Finland aad ugu faraxsanahay waa nimo horta dhallinyarada aad u da'yar oo aragtay xirfad ahaantooduna ma liidanin laakiin waxa kaliya maaragtay ka dhineed waxay ahayd maadaama ay yaryar yihiin waa aragnimada ku yarayd disibliinkooda waa fiicnaa xirfad ciyaaroodkooda waa fiicnaa waxa weeye waa aragnimada u dhiman waxaan kula talinayaa dhallinyarada horta Finland oo sanadkan timaaday waa koox aad u sarraysa waxaan rajaynayaa hadday sidan ku sii wadaan oo kooxdooda sidaa lagu hayo oo ay tababarra galaan sanadka hadda markay noqdaan ay tababar bilaabaan ay sanadkao dhan wadaan ay sii wadaan waqti kasta ay wadaan kooxduna isku xiraato waxaan hubaa sanadka dambe ama 2 sano kadib in kooxdaas ay meeshaan koobka ka qaadan doonto anigu aad baa macnaha rajo weynaan ka qabaa kooxda Finland kooxda Amsterdam oo la reebay iyagu waxa weeye anigu aqaana magaaladan deganahay kooxda xataa Amsterdam muddaan wadi jiray dhibaatada waxa weeye kooxda Amsterdam marka saal la ciyaaraya waa arkaysaa ciyaartan meesha ka socota quruxda badan farsamada aad u sarraysa kooxdu siday u ciyaaraysa nin walba booskiisa saalka marka waa sidan waxaa fiican dhallinyarada waxaan kula talinayaa sanad walba inta lagaa badin lahaa sidan wax u soo baro maaragtay soo dadaal position saad u geshid soo bara saalka kubaddiisa haddaadan soo baran sanad walba waxaa imaanaysa in meesha lagugu ceebeeyo magaaladaadina lagu qabto waa falxumo marka waxaan ku talinayaa dhallinyarada weli da'da yar ee sanooyin si ciyaari kara
in ay saalalka ay ka qayb galaan Marookaanka oo kale magaalada Amsterdam xoogay u degiin hal ciyaaraan iyaga had doontaan Soomaalidaas ka dhaafaan Soomaalidu saal ma ciyaarto ma yaqaanaan had doontaan Marookaanka iyo Surinaamka iyo Turkida iyo dadkan sidan u ciyaara waxbay ka soo baranayaan laakiin waxa saalal badan Amsterdam ka furan ilaa 4 dhaxdooda ciyaara waxaad arkaysaa 80% saal footballka ma yaqaaniin waxba kale ma baranayaan marka waxa fiican marka dhaxdooda waxaan kula talin lahaa dadka kale inay la soo ciyaaraan marka waxa weeye markii dadka fiican aad la soo ciyaarto qaladaadkaaga waxbaas ka soo baranaysaa laakiin dad adiga kugu maaragtay mustawahaaga kala jooga ama ka hooseeya dad la ciyaarto waxba kama faa'iideyso sanadka dambena halkana sidaas lagu imaanayaa iyadoo intii laga liito ani waxaan leeyahay marka dadka kale la soo ciyaara oo xirfadan gaaray dadkaas la ciyaara dhex gala waxbaa isbedeli doona markaas waaya adigu nafsadaada waxaa ka mid ahayd macallin oo ka mid ah oo dhowr jeer ka soo qayb galay barnaamijkan koox soo tababaray markii kuugu fiicneed koox adiga aad tababaraysa heer wanaagsan ay gaarto goormay ahayd anigu horta irda kooxdeeda waxaan waday markii ugu dambeysay waxay ahayd ciyaarahan samarka oo bannaanka lagu qabto 2010 markii ugu dambeysay aan waday kooxda aan waday ayaana koobka qaaday oo ciyaarihii irda oo cawska mar waxaa jirtay oo isla kooxdaas aan waday 2009 inay ahayd aan malaynayaa meelaha ay tartan lagu qabtay muxuu ahaa magaalada Den Haag oo saal footballer koobka waan soo qaadnay labada mar guulo fiican aan soo hoynay iyo marar badan oo bilowgii aan qabanayna waa jirtay oo sida hadda Amsterdam oo kale oo mar walba nala garaacay markaa kadib markaan 2 sano hayay waxbaan ka baranay tiimkii xogaa awoodooda kore u soo kacday inkastoo ay jireen waxyaabo ka dhadhinaa oo aniga aan u sheegay inay iyaga saxaan laakiin dhallinyaradii waa ka xumaay iska maysa sixin qaladaadkii anaa u sheegay waxaa fiican macallinka adiga garoonka lama gelay laakiin wuxuu kuu sheegaya wixii qalad ah ood gasho wuxuu ku leeyahay war qaladkaasaa jira soo sax ciyaartooygu marka hadduu wax fahmayo caqli leeyahay wuxuu leeyahay okay qaladkaasaa lee sheegay qaladkii uu soo saxayaa macallinkii uu kaashanayaa qaladaadkii markaas hadduu soo saxo wuxuu imaanayaa sanadka kale isagoo inta ka fiican laakiin haddii marka qaladkii lagu sheegay aadan soo sixin oo mar walbana aad timaadid waxaa imaanaysaa dee meeshii maalin walba marag inay iska noqoto ha lagugu dhibca badsado taana ma fiicno waxa weye kooxda Amsterdam waa hartay ani waxaan leeyahay nii jabin waa lagaa badin karaa laakiin khaladaadkii hadda ay galeen oo dhan ha ururiyaan ha soo saxaan wixii qalad ay galeen sanadka dambe waxaa laga yaabaa meel ka fiican inay imaadaan laakiin haddii inta sidaan lagu kala tago la yidhahda maalinta u dambaysa dad ha la soo ururiyo dee meeshii la taagnaanaya ani waxaan leeyahay qaladaadkii la galay ha la soo saxo haddii kubadda waa saas intaasaan anigu maaragtay uga baxaya waa hagaag waad mahadsan tahay abuna ayuu ahaa kaasi oo inooga warbixinayey khibraddiisa ku aadan xagga iyo isboortiga iyo sidoo kale faahfaahin dheeriya ka bixiyey ciyaarta imika soconaysa taas oo dhex marayso xulka Morocco iyo sidoo kale Dream Team koox ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya